salaamay midna weyn su'aalaya baarlamaankii shalay saxaafadda laga caburiyay isaga qudhiisana la caburiyay daqaalihiisina la caburiyay maxaa ka soo baxay oo war adinka ruuxaan ahay war baarlamaanka xogtiisii waa lagu hayaa xilli wax la qariyana lama joogo amarka dhama wax lagu caburiyayna Facebook la soo dhigay oo baarlamaanka laftiisu waxay leeyihiin fahad dartiisa wax oo dhan loo caburiyay hadda waxaan dhihi lahaa saraakiishan Facebook sirtii qaranka siinaysa saxaafadda maxay uga qarsheen waa su'aal kale war fahad laftigiisa baarlamaanka wuxuu ka dhex yiri saxaafadda hadii la ogolaan lahaa ma waxaanad ka dhex sheegi lahaydeen hadda fahad codkiisiyo duubana waxba ka maqneen baan xalay dhageysanay maxaa la qariyo waayahay war waxba uma ogidin fahad xildhibaanada su'aalaha weydiiyay mid kamid ah wuxuu yiri sharcigan isla tiigsanayna war fahad yaasiin wariyo ajir waliba TV ka shaqeeyo marka arigiisu ma cusbee hadda maxuu iska qarinayaa war saaka waxaan arkay saraakiil badan oo caraysan oo nabad sugidda kamid ah waxay yiraahdeen fahad shala wuxuu yiri sarkaalkan mushaarkiisii qaadan hortayda hal la keeno annagana mar lacag noogu dambaysay ma naqaan warnimayo xildhibaan jeeso wuxuu yiri wargeys Mareykanka ka soo baxay waxaan ka akhristay inuu Donald Trump yiri Soomaaliya iyo Muqdisho waxaan galiyay xaalad degdeg ah jidadkuna aniga ay xiran yihiin marka hadii magaalada Mareykanka u xiran tahay madaxdeenu maxay beenta noogu sheegayaan oo amni baan ku sugaynaa annaga xirna noo leeyihiin war ma haysan roobkii guga gobolada Soomaaliya meelo kamid ah ka curteen meelo badan dadku waxay ka cabanayeen biyo la'aan marka Allah roobna sii dhaho oo Ilaahay khayr ka rajeeyo oh no rabbiyo rahmaano Soomaalida urono war rabbiyo rahmaano roobnin si dheh Ilaahay roona roobna sii dhehadba oran waxaan dhageystanimayo xildhibaan professor Dalxa iyo Xuseen Cabdillah waraysi dhex maray professorku wuxuu yiri amnigu waa mas'uuliyad wadareed cid gaarana lagu eedi karo wariyina wuxuu yiri shacabku haday canshuur dhiibeen dawladana taageereen wax loo dirsadana aysan diidin waliba idinkoo jidadkii ka xirtay ay idin sii dul qaadanayaan maxaa ku dhiman professorkuna wuxuu yiri warka aad sheegaysa kalamaan kulama qabto war anago magac kalamaanka hadalow professorka ma in sheegay kalamaan ay kulmi isku mid ah ay niisariibsanay nimayahu abwaan sheekh nuur la yiraahdo wuxuu yiri xildhibaan Dalxa waxaan dhihi lahaay dilyaa kuubsi dadweynahow Dalxa ka saaray dulyaa hoos dilya kuubsi dadweynahow Dalxa ka saaray dulyaa hoos war waa xildhibaan professor Ibbi ninka bajaajleyda ku eedeeyay inay bambooyinka tuuraan bajaajleyna waxay dhayn Ibbi hadduu sawarkaas raali gelin ka bixin mar dambe bajaaj bilaash kuma raaci doono war ma haysiine ra'iisul wasaare Khayre iyo waftigu hogaaminay waa soo laabteen waliba Mareykanka indhahay u shiteen Khayrana wuxuu jeediyay khudbad 12 daqiiqo socotay oo lala asqaraaray we need to see the Somalia we are Somalians and you people we want you to help us as we want war Khayre khudbadiisa tubihi uu noo sheegi jiray ma ku sharaxay war tubta dheer oo sheegay samahayd toobi fudud bal helay war khudbadii baankii muunu jeedi war Khayre sida Barack Obama oo kale u khudbeeya war nimayo xildhibaan aamin oo la hadlaysay madaxda ammaanka waxay tiri hooyada masaakiinta ee cashuurta laga qaado ee wiilkeedii bajaajta ay deynta ugu soo qaaday suuqa lagu dilaayo adinkana ilmihiinni ayaad cashuurta hooyadaas laga qaaday dibadii ku geysateen markaas baad subax walba aaba jaamacadii ma aad iskoolkii ma aad leedihiin marka Ilaahay inta ka baqdin ilmahan waa kuwiin oo kale sidan u dhaama xildhibaanad aamino waa xubin golaha shacabka kamida ma waxay tiri caruurtiiniyo dhoofsan oo Yurub ku dheelaysa dhalaan kale xaquuqdood muddo dhayla ku cunteene war sidaan u dhaamo ilmuhu wax isma dhaamaan waxaan leeyahay run loo hadle ruux iyo risqa rabbi bay isu qoray qofka roorayo rajabeel han noqon war gudoomiyaha gobolka Banaadir geeka mayba la kulmay BLaydi oo lama maalmood binaan bahaayeen BLaydina may baaraan kulankii haliinto birirf ma ka erna gudoomiyaha ma era ii dheer waan busna ii dheer sida arikiyan jididan ii hirinaadeen waan anshuurna siin ku qaado fadeeyo halbeed yaareen taasi adan nin dareer waaytay yaareen usuun dareer waaytay war baanta iska daa bajaajleydi waa loo fasaxay jidadkee waxayna dhahan maanta aadan u faraxsanahay nalama xushmayn jirine maanta aska taxtaawayna xushmeeyeen bay yiraahdeen waraa dhiig oo dhulkan dhamaad ya ka heleen warnimayo waxaan ku
riyooday madaxda dawladda Soomaaliya oo isku raaci weysan inay waraaqada Ilhaan Cumar ku cambaaraynayaan soo saaraan wixii jira ma jiraan waad oran jideen waxaan jirina way jiraan waad oran jideen ma jidnayo wajidaan way soo qaba jideen war sidaa ma aha waxay ahayd iscadeeyaya iyo dibnaha dhiig marsadayaaba walla qurux jacaylkaan u qaba way isu dhaqayay war sarwal oo dhiyaw galada iko idagin leeg toladaaba ilbahna ma faydis tibili anan qob ino dhafoorada hiiridoonad ha oo dhawta madaxweyne noqdaya iyo madaxda taageeraba dawladnimo jacaylkaan u qabo way isu xiraya ka tahriibaya iyo si kale wax u tabceeyaaba walla qoray jacaylkaan u qabo waa u soo gadan iska celiyaya iyo habaar uga adkaadaaba walla shabaab nacaybkaan u qabo way isku soconna anigu waxaan dhihi lahaa bambooyin tuuriya backaasi bulshada waxay u baaba'sheen bambooyin tuuriya backaasi iyo ku bulshada waxay u baaba'sheen waryaa bajaajilay backaasi waa heshiiyeen ee darada dhaw umadaas ku dirin waryaa booliska qaranka backaasi hadii waryaa mukulaali dawla ama tooheliyan hata haytay horta cabdi qari muxuu carraa maalin kasta inta raam samcadan ku dhigay shacabku waa tuunsanayeen